ummad aanan af lahayn waxa ay waysaa markay ummadda afkeeda wayso dhaxalkeedii bay waysaa dhaxalkuna waa dhaxal ballaaran oo weyn oo kumanaan sano soo socday oo aan cid ku siin karta aanan la arag waxa kaliya ku dhaxal siin kara waa in weelkii dhaxalkaas uu kugu jiray aad haysato oo sii kobciso oo aad sii horumariso afku waxa uu qayb ka yahay haybta inaga oo Soomaali ah ayaa waxay nasiib u helay inaynu ku biirno hayb weyn oo la yiraahdo haybta islaamka oo maanta 2 bilyan oo qof ay ku jiraan kuwaas ayaa haybteena waana mid maanta keentay in difaaca dalkeena iyo badeena oo khatar galay aan la kaashano dadkii haybtaas ka soo jeeday haybta marka aynu galay oo weyn waxa macnaha u yeelay waa quraanka oo qoran shaqadii diintana waxa macnaha u yeelay oo weynay waa quraankaas iyo quraanku inuu qoran yahay oo wax qoraal u yahay afkeena marka xoogiisa waxa kamid ahay in markii quraankii uu noo yimid quraankii higaadiisi hal abuur loo sameeyay wala Soomaaliyay waa midii uu sameeyay macallin Yuusuf al-Kawnayn kun sano iyo ka badan ka hor waana runtii wax loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay ku faanaan loona baahan yahay haddii xataa uu noo yimaado dhaxal kaleeto oo aan baahi u qabno dhaxalkaasna inaynu Soomaaliyeynaan u baahanahay ma ahan midka hadda maalmahan waa la taray gareeyay iyo waa la agri gareeyay iyo waa la discuss gareeyay iyo waa la compromise gareeyay iyo waa la wax kaas ma runtii afkeena oo khatar ku jira iyo dhaxalkeena oo khatar ku jira ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladdiisii hogaaminaysay waxa ay fursad u heleen 50 sano ka hor inay afka qoraan waaba isweydiiya hadda aniga haddaanu qornaan lahayn maxaa nagu dhici lahaa waayadan dambe waxaa soo baxday inaan waxba la xifdin karin xataa iskuulada iyo ardayda meelihii baan ku aragnay dadkii inaanay waxba xifdin karin hadda haddii dadka meeshan jooga la weydiiyo oo la yiraahdo qofka dadka uu jeceshahay telefoon lambarkiisa ii sheeg muxuu samaynayaa wuxuu ka raadinayaa Soomaa contacts yuu ka raadinayaa taa macnaheedu maxaa weeye wax la xifdin karaanan jirin oo way dhamaatay waxa kaliya marka wax lagu kaydiyo lagu xifdiyo waa qoraalka marka anigu waxaan kamid ahay dadkii markii ugu horeysay professor Saeed oo alifay heesta alif la kordhabay dadkii ugu horeeyay ee fasalka koowaad dhiganayay ee heesta qaadiyay ayaan kamid ahay xilligaas fursadaas markii ina soo martay afkeena in la qoro ahayd runtii sidii aynu rabnay iyo sidii aynu jeclayn uma aanan horumarin waxaa waliba na soo gaaray dhibaato kale oo aad u weyn oo dhibaatadii ahayd qaran jabkii burburkii dawladnimada iyo dagaaladii sokeeye oo barakac xooggan nagu sameeyay adduun kaleeto oo aanan isku dhaqan iyo isku dhaxal ahayna aan magan u noqonay oo hadda professoradeena ay kamid yihiin dadka ay danta ku kaliftay inay dhaxalkaas oo aan keenna ahayn iyo haybtaas aan teenna ahayn inay ku biiraan oo ay meeshaas u tagaan oo runtii nasiib darro aad iyo aad u weynahay laakiin waxaa runtii maanta oo kale xusid aad u mudan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo markuu xaalkeenu arkay xaalka afkeena isku dayay inuu soo aruuriyo aqoon-yahankii afka Soomaaliyeed dib loo daabaco kutubtii Soomaaliyeed lana aasaaso akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga oo uu intaas uu soo hayay oo uu soo hogaaminayay oo uu soo gardaadinayay
maalintii ay noo suura gashay inaynu dowladnimadeena dib u soo unugno oo dowlad rasmi ah noqonana nagu soo wareejiyay oo keenay caasimadii Soomaaliyeed ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed ah maantana ay leedahay xarun weyn iyo aqoon-yahano ay leedahay runtii waxaa bogaadin aad iyo aad u mudan dadka Soomaaliyeed ee uu ka dhiman waayay afkooda ee siyaabo kala duwan iskugu dayay inay ilaaliyaan caruurtooda baray iyagoo qurba jooga iskoolo u furay iyadoo la kala qaxayo buugaag ku qoray iyadoo oo laga sii haajirayo saas oo kale jaamacado iyo kulliyado iyo maxaan ku iraadaa maamuusyo iyo munaasabado iyo xaflado iyo wax badan runtii ay u sameeyeen waana xariga isku haaya dadka Soomaaliyeed xariga isku haaya way afkeena hooyo runtii aad iyo aad baan rabaa inaan mar kale u bogaadiyo dadaalkaas weyn ee la soo galay maanta marka haddiina lagu soo simay oo awoowayaasheen iyagoon qoraal aqoonin ay dhaxalkeeni noo ilaaliyeen oo ay noo soo gudbiyeen oo duruufihii adkaa aynu ku jirnay inagoo dawlad xumo iyo dawlad la'aan ayna haysatay ay dad Soomaaliyeed ku dadaaleen inuu noo soo gudbo maanta oo heerkan aan joogno waxaa inala gudboon dhammaanteen inaan u guntano in afkaas la xoojiyo oo dib loo soo nooleeyo haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada waxa aanu ballan qaadaynaa af Soomaaliga inuu noqdo afka wax lagu barto ee ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan qof kasta oo Soomaaliyeedna waxa khasab ku ah inuu af Soomaali wax ku barto haddii uu doonayo dalka Soomaaliyeed shahaado ay dawladda Soomaaliya aqoonsan tahay inuu ka qaato jaamacadaha sanadka waxaan ku soo darnay sanad la yiraahdo sanadka asaasiga ah maadooyinka ku jira waxaa ka mid ah maadada af Soomaaliga ayaa ka mid ah ardayga aysan shahaadadiisu ku qornayn maada af Soomaaliya inuu soo bartay oo uu ku soo gudbay shahaadadiisa wasaaradda waxbarashada ma aqoonsanayso ma jeclay inaan hadalka sii dheereeyo xilligii salaada ayaa soo dhow laakiin kuma filla xus maalin aynu samaynay iyo hal gooban isugu imaanay waa inaynu u guntanaa shaqo dheer waa inaynu u guntanaa waa inaynu dadkeena qoraal akhriska aynu barnaa dadka jaamacadaha iyo hay'adaha iyo cilmi baarista iyo tacliinta ka shaqeeya ka guud ahaantood waa inay u guntadaan inay dadkooda wax baraan oo qoraal akhriska ay baraan sanadkan gudihiisa haddii Ilaahay yiraahdo waxaynu qabanaynaa shirweynaha af Soomaaliga cilmi baaris badan laga sameyn doona cilmi baaris badan lagu soo qadimi doona talooyin wax ku ool ah ee sidii afkeenu u horumari lahay ama uu loolanka adduunyada ka jiro ee cilmiyeed uu qayb uga noqon lahay ayaynu shirweynahaas ku lafa guri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in waxyaabaha ku jira dib u eegista ay ka mid tahay in dawladda ay waajib ku tahay inay ilaaliso afka Soomaaliga inay ilaaliso inay horumariso afka Soomaaliga marka taana inaad dhammaanteen ay tahay hawl qaran aynu u wada istaagayno